بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آدي دود السلام يا صاحبي قرح بدن الشرف طلع مالك استدافع عالم كتشوكتان فرحات برواقية بشبش كتشوغا إلهي إذن كيسة آمين يا الله. halkan insha Allah waxaan rabaa inaan hambaliyo u diro walaashay Xamdi Kalgacal iyo walaashay macaan oo iyadana maarta aqbashay Laki Xaaji Wacays oo walaashid codsigeeda aqbashay siday Xamdi tiri insha Allah inaan u hambaliyayaan rabaa sababta aan u soo degdegina waxa weeyaan waxaan isiri maadaama aad maalintii sawirada laga gabadha maartay sawirka lagu been abuuranay aad maartay soo dhex gashay farxadana inaad ka qayb qaadatid la'aana shaydaanka ayaa waxa xun ka qayb qaata waxa wanaagsan ka gaabiya marka waxaan jeclaystay walaashay Xamdi Kalgacal inaan farxadaas iyo gabadha walaashay Laki Xaaji Wacays inaan farxada kala qayb qaato oo aan waliba u degdego aan wal hambaliyo iraahdo labadoodaba baan u soo degdegay ma sha Allah waxaan nimcay farxada walaashay Xamdi Kalgacal inay ka farxisay Allahi khaaliqa hay abuurtay iyo malaa'iktiisa iyo ummadda Ilaahay ee dhan ee muslimka inta wanaaga jecel oo dhan inay ka farxisay inta xumaanta jecelna inay ka xishoodsiisay shaydaankana inay ka cadhaysiisay ma sha Allah tabaarakallah Allahu akbar baan ku leeyahay Allahu akbar ma sha Allah alxamdulillah Ilaahay baa mahadda iska leh nimco Ilaahay weeyaan meel Ilaahay lagaga farxiyay iyo malaa'iktiisa iyo ummadiisa wanaagsan ma wax laga soo daahaa alxamdulillah baan leeyahay walaasha Xamdi mar kale waxaan leeyahay hambaliyo Ilaahay waxaan kaaga baryay qalbiga wanaagsan ee aad la soo noqotay ee aad dareentay maaragtay jidhka walaalka damqashada jidhka walaalka aad dareentay qalbiyada islaamka aad ilaalisay cabsida Ilaahay ee Ilaahay xaqiisa ka galiyay Ilaahay waxaan kaaga baryayaa kumanaanka Ilaahay cadaabka ka xoreeyo Allah kugu daraanaka iyo anagaba aamin ya Allah kumanaan iyo kuma tira male inta Ilaahay cadaabka ka xoreeyay Ilaahay cadaabka ka xoreeyo Xamdiye Ilaahay waxaan kaaga baryaa adiga intii islaamaba iyo aniga iyo kulligeenba kuwa garabka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ka soo baxa Allah inaga dhigo aamin ya Allah Ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa Nabi Maxamed maalinta qiyaamo u shafaaco qaadayo Ilaahay hayna ku daro aamin ya Allah dambiyadeena Allah dhaafo aamin Ilaahay waxaan ka baryaynaa kulligeen oo dhan Allah hayna wada saamaxo walaal hambali ayaan ku leeyahay farxadda iyo wanaagaasan kula qaybsanayaa laba kelimood oo dardaaran ah wadan ku soo marinayaa biidmillaahir rahmaan waxaan rajaynayaa inay ku soo gaadho Xamdi wax yar ayaan ka tilmaamayaa Xamdi waxaan bartay waqti aad maartay sida u sii fog runtii intii ay baraha bulshada soo gashay aad ayaan maartay ula socon jiray waxaan diidi jiray marka ay dulmiga diido ayaan aad u taageeri jiray u jeclaan jiray la'aana anba ma jeclin la dulmiyo marka ay dad qabiilo caydana aad baan uga damqan jiray xaqiiqatan balse mar walba waxaan isooran jiray gabadhaas haday maanta wax ragto iyo haday wax caydo la'aana waa qof tabanaysa waxaynu markhaatiga u soo wada ahayn oo dhan in gabadhaas ay dulmi tabanayso markan hoos wuxuu ugu qoray xandhii jiray Xamdiye reerka aan ka dhashay Xamdi aad ugu dheeraatay intii qabiilaysaysteen marka xanuun jira Xamdiye iska daa qabiilkoo dhan ha caayin wixii ku soo doontay iska celi baan message ugu qori jiray Allahu a'lam inay aragtay in kale Ilaahay baa taasiga og saasaan u qori jiray maalintii ay gabdhaha isku dhaceen ee aan dareemay in la dulminayo hooyada la soo duubayna anaan weligay qof maaragtay garab siinin ama qof u hadlin ayaa waxaan si cadaalada u hadal waatii aan ka hadlay Ilaahay baan u baartay mahada iskale iyadana way iiga mahad celisay wayna ku faraxday xaqiiqda waxayd markay umusha ahayd waliba ay maata 2 iyo 3 maalmood umusha ahayd maalintii hooyadeed la soo dhigay shoog bay inagu ahayd marka dulmiga qofka in la dulmiyo qofowna ha ogolaanin haddana walaashay qaali waxaan ku leeyahay wixii ku dulmiya adigan cidna aflagaadeen cidna wax dhihin qofka ku dulmiya iska celi laakiin walaal qof aan waxba ku geysan oo aad og tahay gabadhan Laki Xaaji Wacays waa dadka maartay la dhibo aadka uga hadla waa dadka victimka u hadla waa gabadha kaliya ee inteen hadda inaga caqlisanay riwaayad ka samaysay dhibaatada lagu hayo beelaha gabooye sharafta leh
lagu hayo gabadha ka samaysay aad ogtihiin yacni waa gabadh qof walba u hadasha oo dareenta qof walba qalbigiisa ilaahay baan ku dhaartay heesaha ma dhegaysto mana jecli haddana heesteeda single mother waan dhegaystaa yacni way i taabataa because aniga idinma sheegin baa laga yaabaa single mother baan ahay 5 ciyaal haysata alxamdulilah taariikh dheer iyo nolol adagna soo martay riwaayadii ay ka samaysay yadii ah oo Aamina Musawihili isla sameeyeen riwaayada wallahi markay dhigaysay laka xaajo wacays waxaan moodayna aniga iga samaysay baan mooday ilaahay baan ku dhaartay waxaan jecelahay inaan la xiriiro meel laga xiriiro laakiin saa dadka uma aqaani hees ma dhagaysto laakiin heesta single mother ay qaadi jirtay waan dhagaysan jiray waqtiga ay soo baxday waliba waxaan jeclaan lahaa iyadoo bilaa muusiga inaan helo aniga aba hawada ku mari lahaa yacni heestaas marka walaal gabadha tan waa gabadh u dooda xuquuqda bini'aadanka oo dhan especially dadka la dulmiyo ee dhexdeena lagu dulmiyo xamdi walaasha yacni iska ilaali qof kalena walaal haduusan qofka wax weligaa ku dhihin cidna ha u soo raacin sharaftaada iyo sumcadaada ilaasho qofna iyo intuu maartay close behind doorka maartay intuu isku nabo albaabka dambe xidhan intuu isku nabo yuusan ku dhihin wax samee dadka waaweyn dad qurbo kaaga soo horeeyay dadka caruur waaweyn adigoo maanta primary care ah hooyo ilmo yar korsanaysa adigoo ah yaan lagu halaagin yaan qoyskaaga iyo gurigaaga iyo ninkaaga quruxda badan maasha Allah yaan dhibaato lagu soo jiidin cidna cid ha u maqlin inta xamdi aan ka aqaano xamdi markaad gadaal kala hadlaysid waa qof horta raxmad badan waa qof qalbi wanaagsan ilaahay baa markhaatiga qofka wanaagiisa la sheega in badanna waan sheegay oo xitaa gabdho aan saaxiibanahay waa u sheegay waa gabadh qalbi wanaagsan waa gabadh raxmad badan waana gabadh sidan ay markay maartay YouTube joogto u qaylinayso aan u qaylin weeyaan oo hadal badnayn weeyaan waa gabadh talada dadka dhageysata laakiin xamdi dhib yar bay leedahay xamdi saaxiibadeedu ma wanaagsana ilaahay baa idilaya ma is markii ugu wardamaysa masaaxiiba wanaagsaneen in badan baan xamdi la hadla xamdi fursadaad haysataa gabadh dhalinyaro abaa tahay walaalay waxbaro walaalay barnaamijyo keenso war barnaamij waxa ugu filan iyada qisadeedii ay soo martay ee lagu kaadi cabtay lagu caayi jiray wallahi qisadeeda haday ka sheekaysaa barnaamij oo dhan ka kaafinaysa waana qisa hadii luqadaha kale lagu turjumo ama wariyihii wareysanay halka Soomaali ka oo ajnabi ka ahaan lahaa waxa laga yaabaa laha qisadaas oo kale in mar hore buugaag laga qori lahaa in sharciga tahriibta adduunweyne wax ka qaban lahaa in maartay gabadhaas xitaa magdhow la siin lahaa ayada maartay wax loo qaban lahaa ayaa dhici lahayd laakiin waan ka xumahay turjubaanku wuxuu ahaa Soomaali buu ahaa oo haduu doono aan turjubaanka ma ahayn ninkii wariyaha wareysanay sheekhi waliba waxa laga yaabaa xitaa isagu inuu mushaar laan ku shaqeynayay bal inaguna caybayna uga dhigno kaadi cabtay bayna ku nidhi laakiin qissa buugaagan laga qoraa weeyaan dadka caqliga leh fahmayaan marka walaasha xamdi intaasaaba qissa ugu filan walaal xamdi ay dhamaantay iska kaaya caafi anigu xaqiiq markaan 4 qof oo isku reer aad wax ka soo duubtay saddexdii hore waaba xaslaa iyaga isku filan laakiin markii laki 4 ku noqotay ayaa waxaan isiri may xamdi waxay qabiil bay baabi'inaysaa baan isiri ay arkana yacni focuskaaguna reer saaray waxaan si ma jirto waxba jira marka walaal macaan Allah ina wada cafiyo maalmaha farxadda ah maalmo qorraxi soo baxdo maalmihii ugu khayr ka badnaa 10kii u horeeyay dulxija u horeeyay ayaad walaal toobad keentay ayaad walaashaas cafis weydiisatay kulligood cafis wada weydiiso oo walaal munana cafis weydiiso oo munay adigana walaasha iska cafi oo xamdi waxaan kaala dardaarmaya wax kasto dhaca shakhsigaas qabsataan iska celi ama u samir sida shariicada islaamka xitaa waxay qabtaa inaad intuu kugu sameeyay in la ku sameeysid choice baa lagu siiyay laakiin walaal qof wax kugu sameeyay wax ku sameeynin walaal xamdi waxaan kaala dardaarmayaa dadka magacyadaadu bixinaysid kada magacyadaas waa dambi ilaahay ma banaynin ilaahay baa quraankiisa inoogu sheegay dadka magacyada ha u bixin dhamaana waxaan ugu wacyi gelinayaa qof haduu in leeyahay intiisa ha ku caayinina nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu dhahay qof amar ilaahay u keenay hadaad ku caaydi sida ilaa curiyaan dhiglaawe oo kale ama xanuunkaas uu qaba ama sonkor buu qaba ama cudurkaas uu qaba nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu dhahay qof rabbi wuxuu u keenay aad ku cayday godka qofkaas lama geeyo ilaa xanuun waxaas uu ku dhacaa
is ilaaliya oo kulligan aan wada ilaalino walaashi xamdiye mar dambe is ilaali qalbigaaga wanaagsan ka faa'iideyso diinta baro walaalo maxaadirooyinka dhageyso wixii dambi kaa soo dhacayna maanta ilaahay dartii markaa dadka cafis u weydiisatid qofku isaga unbaa ku cafin kara ilaahay wuxuu kaa cafiyaa dembiga isaga ka gashay laakiin kaad addoomihiisa ka gashay kaama cafinayo qofkii unbaa kaa cafin kara haddana ilaahay waa qafuur raxiim ilaahay cafis weydiiso intaad nooshahay ka toobadkeen 2 ragcadood tuko ilaahay dembigaaga ha dhaafo walaalo xamay jirkeenu wuxuu ka kooban yahay 360 xubnood xubin walba sadaqa inaga baxda hadaan khaldanayn inta ayna iyo tiradaas baan u malay xubin walba waxay naga baxda sadaqa inaga rabtaa rasuulkeena kaleey salaatu salaam ileen diinteenu waa diin raaxe wuxuu rasuulkeenu waxa idinka kaafinaysa 2 ragcadood duxada inaad tukataan oo kaliya marka baa idinkaga filan walaal iska dadaal salaadahaaga on time ku tuko sunnaha hadaa ku darsan kartid ku darso maalmaha kan hadaad soomi kartid soon waa maalmo hi ugu wanaagsanaa inta maalin xaqir ilaahay ka dhalata waa maalmihii ugu khayrka badnaa ka faa'iideyso hambaliya baan ku leeyahay walaalo macaan sida quruxda badan ee aad maartay isu garatay walaalo mar dambena shaydaanku yuu ku simbiriirixin is ilaali annagoo dhan baa dambi naga dhaca haddana toobadkeenkeenu ha bato hambalyaan ku leeyahay walaasha lakina waa gabadh qalbi wanaagsan iyadana oo xaruuriyada san ka dareemay iyadana hambalyaan u leeyahay kulligiinba hambalya waan idin la farxay xaqiiqatan waan sugi kari waayay dhammaantiina halkaas waxaan ka wada dalbanaya anigana inaad ilaahay dartii ugu wada cafisaan allahayna wada cafiyo ilaahayna kala cafiyo ilaahay suuka wada dambi dhaafo dhammaanteenba ummadda Soomaaliyeed mid ah allahayna tuso ila dalkeena nabada dawlad caadila tan joogta hadii khayrinoo tahay allahayna barakeeyo hadii ilaahay mid ka si khayr badan oo kitaabka quraanka inagu maamulana ilaahay haynoo keena ilaahay subxaanahu wa ta'ala aamin ya allah intaasan ku soo koobaya fiidiyowgaygan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.